sidee ayay u wada nool yihiin nin yahuudi ah iyo sidoo kale haweeney muslimad ah bisha barakeysan ee Ramadaan? ana eegno sheekadoodii fadlan nala wadaag aragtidaada. weligii noloshayda ma jeclaanin ilaa iyo aan ka soo gaara 42 kaliya diinteedii ayaan ixtiraamayay, isagana diintiisu wuu ixtiraamaa. walaalahay waxa iigu nacayn ayna u jirin xiriirkaygii ninkan aan jeclaaday. ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Haye Za'farana oo yahuudi ah iyo Anisa Daawudi oo muslimad ah. waxay ka sheekeynaysaa yaraantoodii inay isku kasi jireen magaalo ku taala wadanka Tunisia. magaalada waxyaabihii caan ay ku ahayd ayay ka sheekeynaysaa oo sidaad u jeedaan raashinkan meesha ku soo 3 sano kadib Ilaah waxa uu qadaray leedahay inaan wada kulanno. waxaan bartay leedahay maqaayadii halka ku tiilay wiil ninkii lahaa wiilkiisa. islaamku wuxuu xaraan ka dhigayaa in gabar muslimada nin yahuudi ay guursato, halka yahuudiyiintu iyaguna ay diidayaan ninka inuu guursado gabar muslimada. wuxuu ka sheekeynaa xiriir uu la soo sameeyay gabdho Faransiis iyo Algeerian ah, balse tani ay tahay tii ugu wanaagsaneed oo hadda uu xiriir la sameeyay una guursaday. laba kun 17 Tunisia waxay ogolaatay inay isguursadaan muslimiinta iyo kuwa aan muslimka ahayn, iyadoo sharciyo u dejisay arrimahaasi oo dhinaca caafimaad iyo sidoo kale waxyaabaha sharciga ogolaanaya laga fiirinayo. inkastoo garsoorka wadankaasi ay awood u lahaayeen inay diidi karaan ayna ogolaan karaan guurkaasi, weli waxaa jirta la leeyahay bulshada dhexdeedu kuwa diidan arrimahaasi. walaalkay aad ayuu xiriirkaasi uga soo jeestay ayuu yiri 3 bilna ma aanan arkin ama maqlin codkiisa, xitaa caruurtiisu waa u diiday in ay ila kulmaan. لكن هو ربي هو اللي يعرف أنا خرجت من ديني ولا دخلت من دينه ولا هو خرج من دينه ولا دخل من دينه. كتب التوراة كلمة سواي عدحي. قال له كان تاخد ولا ياخدوا صغيرات اللي باش يتولدوا يمشي وحاول قرية إن قف مسلمة أن لا جورسن كريم. بيجي يتعبوا بين بوم وآخر يقول له رمضان، الآخر يقول له كيبور، الآخر يقول له روش الشعناء، يقول له رأس العام، مش عملوا له عام كامل. هو الرجل بيده مرته تقول له نحب ناكل جروفات. wuxuu ka sheekeynaya soonka iyo sidoo kale waxyaabaha cuntada ee labada dhinac hadii ay isguursadaan sida ay isku waafaqi karaan ayna isku qaadan karaan. dhaqamada diinta islaamka iyo yahuudiga meel badan ay ku kala bedelan yihiin. waxa ay u heleen laakiin dadkan in ay isku dheelitiraan dhaqankoodii iyo diintoodii ayna wada noolaadaan. aniga yahay markii aadaanku uu maqlo ama telefishinka uu ka maqlo waa uu gaabiya ama waa uu jira telefoonkiisa. waxaan soomaa khamiistii iyo isniinta ay leedahay. wuxuu igu ixtiraamaa arintaasi. isaga sidoo kale wax ma cuno miiska markii raashinka la soo dhigana uu nagala qayb qaataa, inkastoo si gooni ah raashinkiisa ugu diyaariyo. waxaan ixtiraamaa diintiisa yahuudiga. waxaan u diyaariyaa leedahay raashinka goonida ah ee yahuudi ay cunto. waxaan soo booqday xilliga ciida asxaabtiisii. waxaan u diyaarinaa leedahay raashinka si waafaqsan yahuudiyiintu waxyaabaha ay cunaan. raashinka iyo sidoo kale waxyaabaha la cababa ma ahan wax dhildhilah ayuu leeyahay marka loo eego qawaacida u taala diimaha labada dhinacba.
احنا ذاك اللوحود طيشوه هذه دخلت الحليب مع اللحم طيش حرام مكتوب في التوراة ما ندخلش اللحم مع الحليب حتى المعون في wuxuu ka الديار hadlayaa hilibka iyo sidoo kale caanaha la iskuma dari karo marka la joogo dhinaca diinta yahuudda waa la kala saaraa yiri xaraam ayana ka tahay waxaan isku dayi doonaa qoyskeeda inaan la xiriirno ayuu leeyahay waayo cidna kama maaranto in gabadhoodii ay ka aamusaan ayuu yiri waxaan sii wadi doonaa in aan xiriir la sameyno waalidiinta gabadhan inaan masaladan xalin waa isku dayi doonaa ayuu yiri aragtidiina nala wadaaga daawadayaal